Soomaaliya mid ka mid ah wadamada ayaanka daran ee ka hadhay asaagis wada dadkiisu yihiin isku diin dhaqan iyo af oo haddana aroor kastoo qorraxdu bari ka soo kaadaba ay dadkiisu isku lisanayaan seefaha galab kasta min raas casiir ilaa raas kaambooni waxaa taagan shacsanida burburka qaran iyo dhigmaha aan dheelka ahayn ee dalkeena haddaba maxaa ugu wacan Soomaaliya noqoto dal sidaas oo dhan oo ayaan daran muuqaalkeenin ayaynu ku soo qaadanaynaa maqaal uu qoray hilaadii 2016 allah u naxariiste qoraagii maxamed daahir afrax wuxuu isdul taagayaa yaa ka dambeeyay burburinta dowladnimadii Soomaalida yaa hor taagan in dib loo soo celiyo yaa soo hoosta ka warinaya dagaalka sokeeye aan dhamaad ka lahayn sababtiisana la garanayn muxuu u dagi leeyahay dalkani halka ay quwadaha reer galbeed ku wada dejiyeen dibna u dhiseen dalal kale oo ka burburay dagaal sokeeye oo ka qodo dheerkan Soomaaliya yaa fashilanaya heshiis kasta oo la gaadho iyo dowladii dib loo yeegleelba arrimahaas isku wada xiran ma waxa ka mas'uulahay inaga Soomaali ah ma waxa hoos aan uga shaqaynaynaa sheeye naga awood badan oo dantooda ka dhaxargay dagaalka iyo dowlad la'aanta mise waa labadaba jawaabta runta ah waxay u muuqataa inay tahay labadaba sida ay labadaba u tahay iyo labada dhinacba mid walba qaybta hoose ayuu ku faahfaahin doonaa qoraa afrax haddaba si aad u dhugatid mawduucan qiimaha leh marka hore nala joog ilaa dhammaadka lax waliba shilalkii isdhigto ayaa lagu qalaa waxaa jira muran soo noqnoqda dad badan oo Soomaaliya ayaa marka ay cidi soo hadal qaado inay jirto gacan shisheeye oo hagardaamo wada ama cadow dibadeed oo si dadban uga shaqaynaya dhibaatada Soomaalida waxay la soo boodaan war Soomaalidu iyadan dad ahayn ma jirto sabab ay cid kale ku bartilmaamsato beesha caalamka aad ayay noogu daashay ee inaga wax qabsani kari weynay eedda annaga leh ee waxba yiinad cid kale eedaynin ma dhabaataasi maya iyaha warun inaan inaga Soomaali ahay leenahay eed weyn warun in wax si toos ka u burburiyo dowladnimadii ay yihiin kalitalis musuqmaasuq cadaalad darro wadaniyad la'aan saxrad qabyaaladeed iyo kursi doon indhala oo intaba ay ku kacayeen dad Soomaali ah Soomaali oo dhan ma ahe mas'uuliyiinta siyaasadda inta oo dhan cid tilmaanta been ma sheegin waana cudurro haddaanan iska daaweyn aanan dowladnimo hanan karayn waxay dadka badankoodu ka indhala yihiin laba xaqiiqo oo tan garbiyaal xaqiiqada koobaad waxay tahay cudurradaas dhibaantood ma aha wax Soomaali u gaar ah waa cudurro ama cilada ay nala wadaagaan dhammaan dalalka Afrika dunida Carabta iyo guud ahaan dunida saddexaad inteeda badan dalalkaas oo dhan iyagoo nala wadaaga cudurradaas ay haddana ka badbaadeen burburka aan ka kici kari laanahay waa maxay sababtu xaqiiqada labaad aana sababta aan uga badbaadi weynay ama falkii ay ku kacayeen siyaasiyiinta Soomaali ah oo ummadan horboodayay dhowr iyo 30 sano ee la soo dhaafay walina ay jiraan qaar halkii ka sii wada ma ahayn waxaan dhaafsinay Soomaalida balse waxa ku dhex jirtay oo kaalin weyn ka ciyaaraysay gacan shisheeye xuma falayaasha madax ku sheega ah waxay goor walba ku xidhan yihiin garwadeen ajnabi ah si uuna u fahmi karin qofka caadiga ah taas ayaa sababta ugu weyn ee cudurradaasi annaga Soomaali ah noo dileen dalalkiina la qaatayna ay u dili waayeen dalalkan kale udhooda kama badbaadsana faragelin dibadeed waxaa si kala duwan nooca faragelinta taasoo ku xidhan nooca danaha laga leeyahay dal kastaba ka duwan dalka kale ciladaha Soomaalida ee burburka fududeeyay marka la qodobeeyo cudurrada iyo ciladaha kor ku xusan waxa ugu waaweyn koon hoos ku qoran kow qabyaalad hoggaan xumo cadaalad darro iyo musuqmaasuq ay caadaysteen siyaasiyiin damiir lahayn waa saddexda aafo ee qarannimada curnaabi dibindaabyada cadawgana albaabka u ballaqay afar caadifad la'aanta caqliga howlgabka ka dhigta saddexdaa kore ee la dila dareenkii qarannimada wadaninimo jahli iyo fiiro gaabni ay ugu daran tahay tan garwadeenka siyaasaddu maalin nololnimo micnaha ku xisaabta la'aanta shalay iyo berri shalay wixii la soo maray oo aan laga tilmaan qaadan iyo berri waxaa dhici kara oo aan laga gaashaamin ama lagu baraarugsanayn sideed xintan iyo xasad heer qof iyo heer qabiilba sagaal kala dambay la'aan taasoo iyadana iyo xinta ka burburinta isku dubnida ummad ahaaneed bijaxaabinayaan hoggaanka wanaagsan iyo halbaygii soo bixi lahaa toban xasuus la'aan ilowshiyo dhowina inagu Soomaaliyay waa kii abwaan cabdi maxamuud amiin lahaa koob iyo toban oo fiirsi la'aanta iyo ka fiirsi la'aanta wax kasta orod bay nagu dhaafayaan indha la'aanna waa nugu boodnaa maskax waxaan leenahay kama soo shaqaysiino laba iyo toban garanwaa ama dhaweynimo dukanaan ay u sabab tahay u fiirsi la'aan taale marag waa labada qodob ee kore ee 10 iyo 11 waxa ilaa maanta la yahay wax Soomaali ah oo fiirsada darsa kadibna fahmay riwaayadda al konton sano ama dhowr iyo 30 sano nagu hoosaasinayeen wax loo yaqaan international community ama beesha caalamku wax la yaab lah inay muddo ka badan 35 sano Soomaalidu garan kare laadahay in laga riwaayadeysanayo laguna dul shacayo lagu dul taajirayo laga leeyahay qorshe kale qorshe la diku ah waxa la maqashinayo waxaan faham iyo u fiirsi yeelan kari laanahay in xoogaga shisheeye ee cid dhabta ay gacanta ku hayso go'aanka siyaasadda Soomaaliya hadday runtahay ama daacad ka yihiin waxay ku hadlayaan oo ah inay Soomaalida ku caawinayaan inay nabad iyo dowladnimo ku soo noqoto in hadday taasi run ka tahay wadankan mar hore deji kari lahaa si loo dejiyo dalalkii naga daraa ee isla xoogagani ku dejiyeen muddo aad u gaaban waxaan wada ogsoonahay madaxda Soomaalidu inay degdeg u fuliyaan amarada kaga yimaada beesha caalamka UN AU EGAD USA iyo wixii la mid ah sida marka ay shir ugu yeedhaan ama ku amreen inay iska xaadiriyaan wadan dibadda ah waxa kale oo ognahay go'aamada muhiimka ah ee ka soo baxa shirarka Soomaalidu inay yihiin wixii ay yeerinayeen xoogagaas dibaddu xad
waxay gaarsiisan yihiin madaxda ugu sarreysa kii ay doonaan ay ku amraan inuu xilka ka dego asna ugu khasbanaado inuu hoggaansano halkan qor'aan wuxuu soo qaadanaya tusaalayaal la nool ah sida madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee sanadkii 2010 haddaba si amaradoodaas oo dhan ay Soomaalidu u fulisa ayaa loo fulin lahaa wax kastoo tallaabooyin ah ay amraan in dalka lagu dejiyo dagaalka lagu joojiyo dowlad awoodnahana lagu dhiso waqti kuma qaadateen balse xaqiiqada ayaa waxa ay tahay inaynaan doonin inuu dalkani dego oo ku soo noqdo nabad iyo dowladnimo xaaladaha kor ku taxan ama aynu qaybta hore ee muuqaalka ka soo sheekaynay wa ayaan darrana haysata haddaan Soomaali nahay waa caqabado curyaaminaya dadaalka qarandhiska ha yeeshee waa qalad in waxa kaliya naga hor muuqda ay noqdaan ceebaha iyo ciladaha aan leenahay xilliyadii burburka iyo dhibaatada waxa batay ishaaraanka iyo isaadeynta islididda marka ay isbiirsadaan taas iyo magacdilka cadowgaaga si dadban kaaga dhaadhicinayo waxay dishaa ku kalsoonaanta naftaada iyo kartida waxqabsigaaga waxay ku hogaamisaa iska rid isdhiibid iyo quus loo dhinto sa ummadaha kale Soomaalidu waxay leedahay sifooyin aad u wanaagsan oo ka badan kuwaas aan wanaagsanin ee aan soo tilmaanay dunida ma jirto ummad aan cilado lahayn qaarnaga cilado badan ayaa ka nabad qaba ama ka sare kacay burbur iyo colaad sokeeye sababta Soomaalidu u badbaad weydii ayaa ah labadan haddaba ducfigeeda waa halkiisii waxa uu soo tafaxaytay cadow caynada badan waxa uu soo tafaxaytay cadow caynada badan oo shaarar kala duwan ugu soo hoos ka baday oo ka faa'iideystay ciladahaas iyaga ah si aan hore u soo tibaaxnay ducfigaas ayaa loo adeegsaday saan u farsamaysan ama highly systematic oo ay Soomaalidu wali fahmi kari laadahay intaas ay ugu soo gabagabeynaya qoraa Maxamed Daahir Afrax maqaalkiisan oo qora xilligaas waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin aadna ku dageynaysaan bashbash buraaqa iyo nabad haddii aanad weli nagu soo biirin nagu soo biir haddii aanad muuqaalka leeg saarina muuqaalka leeg saar idamka alle waxaan idin rajeynayaa farxad iyo deganaan tan iyo inta aan isku soo laaban doono muuqaalkeena kan xigaa